maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta boqolaal shacab ah salaada ciidul fidriga waxa uu kula tukaday masaajidka isbahaysiga islaamka ee magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay tukashada ciidul fidriga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre xubno ka socday golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir salaada ciid kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay halkaasi ayaa markii hore waxa uu hambali u diray shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maadaama maanta ay tahay maalinta koowaad ee ciidul fidriga isla markaana waxa uu ku dheeraaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in dhanka amniga ay kala shaqeeyaan dawladda Soomaaliya. محمد أحمد جبرتي oo horay u soo noqday musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha wadanka Soomaaliya iyo sidoo kale shacabkii dukashada salaada ciidul fidriga ka qayb galay oo la hadlay telefishinka Somali News ayaa hambaliyo u diray shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo muslimiinta meel kasta ay joogaan ciid wanaagsan إلهنا نحن وديسنا عيدا عيد إنه إلهي إنه قاد سي برواقه يا النعمة يا خير. الله وبركاته كل عام وأنتم بخير. سم نيوز آدي بان وهم برينا رنتي برنامجك وناكسن وكاغب قادنا يو عيد الفدرية وضدك مسلمين تنبيش سوي مساجد كوينا صوماليا إسبايسك آدي بان وهم برينا علينا صوماليا هنولاتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دماء ومد الصوماليات ميلوبي يورون آدي دان سلامة. حنبالي الله عيد wanaagsan sanadkan sanadii ilaahay bashbash barwaaqni deersi meelbaysan roogda ummadda Soomaaliyeed hanbalyo halkan aan joogo waa masaajidka isbahaysiga islaamka ee ku yaala degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho waxa lagu oogay salaada ciidul fidriga waxaana ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo Cabdiraxmaan maxamed cabdi Waaberi telefishinka Somali News isbahaysiga islaamka Muqdisho.